waxaan la kulanay gudoomiyaha xisbiga mideynta Soomaaliyeed Muuse Weheliye Geedi. marka hore Muuse waxaad warbixin naga siisaa xisbigan cusub iyo waxa loo aasaasay. bismillaahir rahmaanir rahiim. xisbiga waxa loo aasaasay waa xisbi mideyn ah kana dhaxeeyo ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. waxa halkan lagu aasaasay markii taariikhdu ahayd 2009 bishii June. waxa halkaas lagu doorto chairman laga dhigay in uu xisbigaanu ka shaqeeyo adduunka oo dhan qof Soomaaliya meesha uu joogto qaasatan Afrika iyo Yurub. wax badan ayuu xisbigu soo shaqeeyay. gudoomiye ku-xigeenkii wuxuu xafiis ku leeyahay fadhiyaa magaalada Muqdisho. gabar kale oo ayaduna ka ah habeyn waxay joogtaa Nairobi. xubno kale badanna caawa caleemasaarka halka ka dhacayo oo xisbiga cadaalad lagu caleemasaarayo ayaad ku arki doontaan ay imaan doonaan. marka waa xisbi loo furay inuu danta guud u ka shaqeeyo. dan qaasa ma wato, siyaasad ma wato, NGO ma wato, isbedel ma wato. waa xisbi la shaqeey doono nin kasta oo Soomaaliya oo muwaadin ah. in mar haddii xilliga aad sheegtay xisbigan la magacaabay oo hawshiisa tan marka uu watay, maxay tahay barnaamijka caawa aad ugu tala gashay marka xisbigan in wax looga bedelo? xisbigu markii hore tood wuxuu ku socday siyar isfahansiin shacabka Soomaaliyeed in la fahansiiyo. waxyaabaha soo qabtayna waa sheegi doonaa. marka hadda maadaama uu 2 sano googo marayo meelo badan oo wax ka soo qabtay haddana uu shaqeynayo, waxaan jeclaysanay inaan u soo bandhigno shacabka Soomaaliyeed cidii doonaysa in la soo xiriirto, annaguna cidaan doonayna aan helno oon ka wada shaqeyno jiritaanka iyo horumarka iyo danta guud ee ummadda Soomaaliyeed. sideeda Muuse marka xisbi la sameynayo kulay wuxuu u baahan yahay shuruudo badan ayaa loo baahan yahay in lagu sameeyo oo la hirgeliyo shuruudihiisa iyo wax looga baahan yahay. marka xisbigan muu dhameystiran yihiin waxyaabihii looga baahnaa? horta Ilaahay baa wax walba u dhameystiran yihiin. bilo aadanka wax walba uma dhameystirno, laakiin waxaan ku dadaalaynaa xisbiyada ka jiro dibadda iyo gudaha midka ugu fiican ama salabaad inuu noqdo, annagoo dhan kastaba iska ilaalinayno waxyaabaha shacabka kala fogeeyo iyo dadka. marka xubnihiisa muu dhameystiran yihiin ururkan? xubnihiisu ma dhameystirno. hadda waxaa jirto 8 guddiga sare ah oo magacaaban ayaa jirto oo qaarna Mareykanka joogaan, qaarna Carabaha joogaan, qaarna Soomaaliya joogaan, qaarna Afrika joogaan, qaarna magaalada Ingiriis joogaan. laakiin waxaan jecelnahay in mar dhowba aan u sameeyno hataa xibno badan oo ummadda Soomaaliyeed u shaqeeyo oo baahi tiro. markaad eegto xisbigeena maadaama uu cusub yahay, waxaa jira xisbiyo dhowrkii bood ee ku horeeyay sidaas oo kale loo sameeyay. marka ma jiraan xisbiyo wada shaqeyn aad leedihiin oo aad ka wada shaqeyntaan arrimo dhowr ah? waa jiraan xisbiyo aan wada shaqeyn lahayn ama laakiin xisbiyo nala soo xiriiray ayaa jiro oo inay yiraahdeen waa isku biireynaa. waxaan dhahnay constitutionkiina iyo dastuurkiina noo soo gudbiya. nuquladii ka mid ahayna markaan helnay waxay noqdeen xisbiyo u taagan mucaarad iyo in haddii alla ku NGO wax lagu raadiyo. marka aniga xisbigeenu xisbi maxaafada waay, xisbi danta guud oo Soomaaliya ka shaqeynaa waay, xisbi dawladda la shaqeynaya waay. marka xisbiyadaasna waxaan u sheegnay inaana isla shaqeyn karin. haddana waxaan u sheegayaa Soomaalida ninkii xisbigiisa uu maxaafad yahay oo doonaya danta guud inuu ka shaqeeyo inaan isla shaqeyn karno, na aan isku beeri karno, waxna isku darsan karno. laakiin waxa ka horeeya constitutionka iyo dastuurka oo ku shaqeynayo inay noo soo gudbiyaan, annaguna keenna u gudbino, kabacdi isla meel dhigno. shirana la yeelo wax shakhsi ama chairman ha ama gudoomiye ku-xigeen wuxuu gaari kara male. 8daas golaha sare ayaa ka fariisanayso. markaas ka bacdiina in sidii fiican lagu ansixiyo, wanaagana laga raaco, wixii dhib keenayana aan iska ilaalino. in xisbigeena waxaad ku magacaawdeen inuu yahay xisbiga mideynta Soomaaliyeed. marka dhibaatooyin waa ogtahay in Soomaaliya ka jiraan oo dadka u baahan yahay in la isu keeno oo mideyn laga dhaxdhaliyo isla markaa wax la fahamsiiyo. ma jiraan marka kulamo xisbigeena uu sameeyay oo ku aadan arrimahaas ama haddii ahaaneed Yurub ama haddii ahaaneed Afrika oo markaas wax natiijo ay ka soo baxeen? waa jiraan. sida civil society oo kale tood waa la kulanay. haddii alla ku idmaayo rag badan oo haddii alko arrimaha Soomaaliya daneeyo
waa la kulanay laakiin si qun yar oo hoose ayaan ku shaqaynaa hadda qofka aan doonaynaa kaliya waxa waaye qofkii aan isfahanna midda kale waxaan kuu sheegaya xisbigan qoys ilaa qaran ay inta u dhaxayso ka shaqaynaya qoys ilaa qaran inta u dhaxayso maahan wax najeclaysiya maahan wax jagaraadisa maahan wax siyaasada arrimaha bulshada ku shaqaleeya ninkii dhakhtar waa imaan karaa ninkii iskuul furay waa imaan karaa ninkii isbitaal furaya waa imaan karaa ninkii shacabka inuu u shaqeyn raba waa imaan karaa annagu arrimaha bulshada ayaan la shaqaynaynaa waxaan soo dhawaynaynaa weliba xagga dumarka caruurta dhalinyarada dadka haddii alla koodmahayo in loo doodo u baahan sida haddii alla koodma dadka la madabta kooro kaleeto la yidhaah oo naga dhaaf hebel wuxuu yahay ma lehe dadkaasoo dhan waa dadka aan danaynayno midnimadana waxaa keenayo oon ugu dhawaaqnay oo midaynta keenayo qofka annagu hata hadduuna diido oo dhibaato wada ka heri mayno guddiyaa loo diraa guddi kalaa loo diraa guddi kalaa loo diraa hataa culumo aa nala shaqaynayso niman culumo ah oo siyaasadda shaqo ku lahayn oo dadka wacdinayo oo wax u sheegaya nala shaqaynayo in waxaad sheegtay in xisbigiinu uu arrimaha bulshada weliba dadka qaasatan bulshada aad ku soo jiidanaysaan uu ka mid noqon karo marka shuruudaha u yaalla xisbigeen ee ku aadan bal cidda ka qayb galaysa ama ka mid noqonaysa xisbiga waa kuwa shuruuduhus waa kuwe qofka ka qayb galaya xisbiga marka horetood waa inuu qof muslima oo diintiisa yaqaan oo yahay marka labaad qof dantiisa iyo danta shacabka wax ka qaban kara waa inuu yahay marka saddexaad waa inuu qof mu'aadana oo dimqanayo uu yahay marka afaraad waa inuusan oo tagrifal oo dadka kala midabta kooraya uusan samaynayn oo ummaddu ay iskugu mid tahay qofkii sidaas oo wadani ah oo dimqanayo oo soomaalinimadu dhibayso waa isla shaqaynaynaa waana soo dhawaynaynaa waay ugu dambayntii haatan maxaa idiin qorshaysan maadaama maanta barnaamijkan caawa aad ugu talan gasheen inaad bulshada tustaan ururka jiritaankiisa iyo magaciisa inaad kusoo saartaan qorshaha idiin degsan ee aad doonaysaan inaad ku dhaqaaqdaan haatan wixii ka dambe maxay yihiin horta haddii ilaahay idmo wax walba horta xukunka ilaahay baa iska laakiin annagu waxaan doonaynaa meesha ugu dheer oo wax laga qabto ama soomaalidu joogto dhibaatadu ka jirto inaan tiigsano wax allaala waxaan ka qaban kara laakiin ummadda wax caawa soo baxda unba dhigaynaa in xisbigu uu shaqo bilaabay caleemisaarka ka horna shaqaynaya haddana caleemisaarka cawada waxaan ugu digaynaa ummadda soomaaliya meel kastay joogto inay nala shaqayso xisbigaasuna xisbi soomaaliyeed oo nin kastoo soomaaliya la shaqaynaya inuu yahay waay aad baad u mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha xisbiga mideynta soomaaliyeed muuse weheliye geeda muuse aad baan kugu mahad celinayaa waraysagan aad nasiis aad iyo aad u mahadsantihiin adinkana Somali Channel TV-ga Somali Channel oo si fiican loola shaqeeyo aad baad u mahadsantahay aad u mahadsantahay